Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Shariif Xidig. Calool xiranku waa xaalad saamaysa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida carruurta iyo dadka waaweyn. Marka la isbarbar dhigo haweenka iyo raggana laba ujibaar ku badan haweenka. Calool xiranku waxa uu dhacaa marka ay saxaradu aad u adkaato isuna beddesho dhagax weke. Calool xiranka waxaa sababa mindhicirka oo ka dhuuqa biyaha saxarada isla markaana saxaradu ay aad u adkaato kana gudbi weyso duleelka malawadka. Xilliga xaajadana qofka uu dareemo xanuun. Balqiyaas qof sidaa u fadhiyo waqti dheer suuliga isla markaana cadaadis iyo riixitaan badan oo ku sameeyay saxarada aan weli saxaroon xanuunka ama dhibta uu dareemayo. maxaa sababa calool xiranka? Calool xiranku waxa uu dhacaa marka mindhicirku ka dhuuqo saxarada biyaha kadibna murqaha mindhicirku ay riixi waayaan saxarada adkaanshaha ku yimaada aawadeed. Marxaladan oo ay sababaan xaalado kala duwan. 1. Isticmaal la'aan cuntada qolofta leh sida digirta, salbukada iyo kuwa la midka ah. 2. Cabitaan la'aan biyo ku filan maalinkii oosan qofku cabin. 3. Uurka. 4. qofka oo aan si dhaqsi ah leh u aadin suuliga marka uu u baahdo ama saxarada isku celiya. 5. Duqowga. 6. qofka oo si qaldan u isticmaala dawada caloosha socodsiisa ama la qabsada. 7. caanaha oo dadka qaar marka ay cabaan calooshu adkaato. 8. qaar ka mid ah cudurrada mindhicirada. Calaamadaha lagu garto qofka calooshu aysan socon. 1. ugu yaraan 3 maalin qofka oo aan saxaroon. 2. saxarada oo qofka ku adkaata mararka qaarna wax aad u yar riixid uu ku keeno qofku. 3. calool xanuun. 4. qofka oo xanuun guud dareema. 5. ama teedka oo ka xirma qofka. Khataraha caafimaad darro ee calool xiranka. Calool xiranku haddii uu hayo waqti dheer qofka wuxuu ku sababi karaa khataraha caafimaad darro oo aad u dhib badan. 1. waa basiir. Saxarada aadka u adag haddii ay waqti dheer ku jirto duleelka malawadka waxa ay sababtaa ugu dambeyn barar ku yimaada xididada dhiigga ee duleelka malawadka. Ugu dambeynna waxa ay keentaa baabasiir. 2. waxa lagu magacaabo anal fissure. saxarada adag marka ay marayso duleelka malawadka waxa ay sababtaa dilaac ku yimaada xuubka malawadka. 3. qofka waqtiga dheer uu hayay calool xiranku markii laga daweeyo kadib waxa ku yimaada waxa lagu magacaabo incontinency ama inuu saxarada jilcan cishan waayo markii calooshiisu ay jilacdo. iyo ugu dambeyn in dareenka malawadka uu dhinto oo xilliga saxaradu ay marayso uusan dareemin qofka. Daweynta calool xiranka. Sida caadiga ah, calool xiranka waa uu ka raystaa qofku asagoo aan wax daawo ah u qaadan haddii noloshiisa uu wax ka bedelo. Daweynta calool xiranka waxay isugu jirtaa bedelidda qaab nololeedka qofka sida in qofku cuno raashin isu dheelitiran, cuntada qolofta leh iyo qudaarta, isticmaalka biyo aad u badan maalinkii, samaynta jirdhis joogto ah iyo ugu dambeyn qaadashada dawada caloosha socodsiiya haddii loo baahdo. sida oo kale in la xaliyo haddii ay jiraan xanuuno sababaya in calool xiran uu qofku la kulmo mar walba ama uu ku soo noqnoqdo. hadda waxaad heli kartaa talo caafimaad. fadlan subscribe, share and like. booqo webkeena www.bukaandeeq.com. iska diiwaangeli oo noogu soo diro su'aalahaaga si laguugu jawaabo.